السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku hayaa daawade saddex buug muhiim ah oo ku sahlaya barashada luqadda Ingiriisiga kuna turjuman luqadda afka Soomaaliga. Buugga koowaad, hagaha dhammaystiran ee tensiyada Ingiriisiga. Buuggan wuxuu ka hadlayaa 12 tensis ee luqadda Ingiriisiga oo dhammaystiran oo aan waxba ka maqnayn, lehna su'aalooyin iyo jawaabooyin oo tens walba ah kuna turjuman luqadda afka Soomaaliga. waa buug kugu hagaya safarkaaga barashada tensiyada Ingiriisiga si fududna aad ugu baran karto ama aad ugu baran doonto hadduu Alle idmo. Wuxuu ka kooban yahay 83 page ama 83 book iyo 2 cover. Okay, buugga labaad, 8 tiir ee naxwaha fududeeyaha dhammaystiran. Buuggan waa buug ka kooban 8 parts of speech, 8 qaybood ee hadalka Ingiriisiga oo dhammaystiran oo aan waxba ka maqnayn, lehna sidoo kale su'aalo iyo jawaabo 10 walba ah kuna turjuman luqadda afka Soomaaliga. Wuxuuna ka kooban yahay 77 book ama 77 pages iyo 2 cover. Buugga saddexaad, wada sheekaysi Ingiriisi maalinle ah, Chit Chat English for Everyday Life. Buuggan waa buug wada sheekaysi Ingiriisi ah, wuxuuna kugu caawin doonaa inaad si fudud u barato wada sheekaysiga Ingiriisiga ee xaaladaha nololeed ee maalin kasta. Wuxuu ka kooban yahay in ka badan 60 mawaadiic oo wada sheekaysiyada maalinlaha ah. Sidoo kale, pageskiisa ama buugga uu ka kooban yahay waa 100 book ama 100 pages iyo 2 cover oo labada dhinacyada ah. Haddaba qiimo dhimis ballaaran ayaan u sameeyay oo muddo kooban ah. Igala soo xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda. ومحسنتهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.